السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدda madow ayaa ku taala inta u dhaxaysa galbeedka Aasiya iyo bariga Yurub. Waxa xuduud la leh dalalka Ukraine, Turkey, Russia, Romania, Georgia iyo Bulgaria. Badda madow waxay dabooshaa aag dhan 168,500 jibaar ah. Waxaana leedahay qoto dheer isku celcelisa 411 feet. barta ugu hooseysa ee badda madow ayaa la sheegay inay gaarto 7,267 cagood. Wabiyaal badan waaweyn ayaa ku darsama badda madow sida wabiyada Dniester, Danube iyo Rioni. Waxaa jira magaalooyin badan waaweyn oo ku tirsan xeebaha badda madow sida magaalooyinka Odessa, Batumi, Istanbul iyo Sochi iyo qaar kaloo badan. Xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan badda madow ayaa ah saamiga biyaha maxillada iyo biyaha cusub ayaa isbedelaya iyagoo la eegaya xil kasta. sababtuna ay tahay xaddiga biyaha nadiifka ah ee ka imaanaya wabiyada iyo biyaha cusbada ee ka imaanaya badda Mediterranean-ka. boqolkiiba 90 barta ugu hooseysa badda madow ma laha oksijiin, taasoo ka dhigaysa wax aan suurtagal ahayn nolosha bini'aadamka ay ku noolaadaan. barka biyaha madow ayaa la sheegay inay yihiin magmatiga ugu weyn adduunka, taamcinahoodu in lakabka hoose iyo lakabka sare ay isweydaarsadaan waxyar. soo helista wabiyada ku yaala hoostooda waxay dhiirigelinaysaa fikradda ah in nolosha runtii ay ku noolaan karto koose. si kastaba ahaatee maaha waxaa la caddayn karo. waxaa jira maraakiib alwaax oo qarnigii 3aad iyo 5aad la adeegsan jiray oo laga helay hoosta biyaha madow inta lagu guda jiray quusitaanka. waxyaabaha laga helay badda madow ayaa dadka u horseedaysa inay rumaystaan in badda madow ay ahaan jirtay marin gaadiid oo muhiim ahaa adduunyadii hore. waxaa ku yaala 10 jasiiradood oo yaryar oo leh deegaano gaar ah. noocyada xayawaanaha laga helo badda madow waxaa ka mid ah xuubiyada zebra, kalluun caadi ah, goobi wareeg iyo kuwo kaloo badan. kalluunka loo yaqaan anchovies waa nooca kalluunka caanka ee laga ganacsado ee laga helo badda madow. waxaa la qiyaasay maraakiibta kalluumaysiga ee Turkiga ay qabsadaan 300 oo kun kalluunkan ah sanad walba, inta badan inta u dhaxaysa November iyo December. kalluunkan ayaa ah kalluun aad u culus. dadka qaar ayaa rumaysan in badda madow ay ahaan jirtay barxadda Nooc. meesha saxda ayaa la rumaysay inay tahay buurta Arraad ee ku taala bariga Turkiga. wax caddeyn ah ma jiraan, laakiin dadku waxay ku mashquulsan yihiin wax kasta.